anigoo ku farxay xasan xaaji maxamuud maanta oo taariikhdu tahay 4 bishii 6 oo maalin jimca anigoo sharaxnaa golaha wakiilada dalka Soomaaliland natiijadii oo soo baxday today maanta anigoo aan noqon ku nasiib yeeshay inay soo baxaan natiijada ay soo saaraan golaha commissionku kulli baa anigu waan ku qanacsanahay ملهي ولا خيامي ملهينا ولا يجاحدي من نورن مايو لكن وحن لي هاي يعني لو بتحقلين دمرهان أنا جاي ننتي هالليا قبل كشر إحنا يتقدر يدنا الدولة ده هوس قولها دكان كشر إحنا أنا قولها وكيل هذا كلنا لو تحقليه مو يعني وحكلوا لي به مشران وأنا هم بلينا يا حلي معنا الصباحي لما أنتوا تصدق الحسب قرنك الصباحي congratulation baan leeyahay insha Allah waxaan noqon doonaan kuwii dalka tubta toosan ku haga annaguna kamaan tanaasulin inaanu ka hadno hanka siyaasadda kulay anigu sharaxnimadeedu waa u taaganahay insha Allah Ilaahay gaarsiiyo waqtiyada soo socda marka time ku dhamaado reer Soomaaliland taana u diyaar garoobo inay la yaabaan baa laga yaabaa laakiin marna waa la dhacaa marna waa la guuleystaa marka tii guushana waan sugaynaa reer Soomaaliland oo dhanna waxaan leeyahay hambalyo iyadoo ay u dhacday si nabadgelyo ah doorashadii isku sidkanayd golaha deegaanka iyo golaha wakiilada waxaan aad ugu mahadcelinayaa reer Abtigay oo ah dhul bahante deegaanna Buuhoodle masaafo dheer ii soo maray inay iga codeeyaan Beledhig iyo gobolka Togdheer aad badabtiyaal mahadsantihiin kaloo halkan aan ka salaamayaa dhammaanba taageerayaashaydii muddada dheer ee dhowrka sano ah ii ordayay inaan soo baxo maanta doorashada waa laynaga helay waa ku mahadsantiin saad u shaqayseen waxaan filayaa dadaal badan baad qabateen wax kastana waxay leeyihiin cashar laga barto waa inaan anba ku qancay idinkuna aad ku qanacdaan waa inaan wax xumaanaya cadhaahay aanay jirin waa garoon la isugu yimiyo Barcelona mar baa laga badiyaayo Sirobi ka badsa iyo Manchester United iyo ma garanaysaa wala kala badiyaa iyo Madrid iyo mar baa Sirobi ku dhufato sidii beri Liverpool ay uga badisay qoleeyada Oldham magaalada deganaayo Great Manchester kamida marka maanta wala inaga badiyay waana maalinta dambe ee tabaabusho wanaagsan dekelina lagama badinine dad badan oo aan moodayay inaga wada horeeyaan waan isla dhacnay marka alxamdulillah kulli anigu waxaan leeyahay waa ka alla baryayaa alxamdulillah asiina fiican baan ka qaadanayaa waxaan la shaqeynayaa marba xusbigayga wadani in hore buu shaqeynayay isfaan la shaqeynayaa marka kuwii iga codeeyay xitaa iga soo horjeeday yaanu seefaha iskala hornay kuwa laftooda waxaan leeyahay cafiye masaamax ama real mar saddexaad baan u hambaleynayaa gudoomiyaha xusbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro insha Allah aan rajaynayo inuu waqtiyada soo socda ku guuleysan doono xilka madaxweynenimo insha Allah aan sugayno iyo xildhibaanada u soo baxay xusbiga wadani dhamaantood uga soo baxay Soomaaliland galbeedka iyo barigaba waxaan kaloo u hambaleynayaa gudoomiyaha hoggaanka xusbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan oo in badan tacab iyo dadaal badan ugu jiray xusbiga wadani iyo dhammaanba hawlwadeennada wadani meel kastay joogaan waxaan aad u salaamayaa oo kale munaaqibiinta aniga ii shaqeynayay meel kastay joogeen oo aan filayo inay si wanaagsan ay shaqada ay u guteen waxaan leeyahay reer Soomaaliland insha Allah waxaanu isugu iman doonaa doorashada dambe ee wadani inaan si wada shaqeyno waxaan rajaynayaa inaan soo saari doono madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciro waxaan aad ugu faraxsanahay xildhibaanada u soo baxay wadani ama sida uu hoggaanka u yahay ugu badan yahay gobolka Togdheer iyo meel kastaba wadani إن شاء الله dadku ayahooda ha ka tashado
mid kalena waxaan leeyahay saddexda xusbiba wada shaqayn wanaagsan iyadoon caadifad iyo cadho jirin marka la isugu yimaado golayaasha deegaanka iyo kuwa wakiilada waa in si wacan loo wada shaqeeyaa insha allah bismillaahi kariim waa idin wada salaamaya dhammaantiin waxaan isugu iman doonaa doorashada dambe ee xilliga madaxweynaha thank you very much.